subaxii ma u baahnin inaan saacadayda ku xirto alam si aan u kaco maxaa yeelay waxaad ku dhex nooshahay wadnahayga gudihiisa waaga markuu baryo waxaad u toostaa inaad quraac noo samayso markaad wadnahayga ka soo dhex toosto ayaan aniguna toosaa taasi ayaa alam ii ah telefoonka aan message kaaga soo diro xilli walba wuxuu u baahan yahay inaan magacaaga ku qoro oo aan kuu soo diro sida dhulka ugu baahan yahay roob telefoonkana ugu baahan yahay jaajar ayuu jacaylkaygana ugu baahan yahay waraabin joogto ah waxa inoo dhaxeeya badweyn buure iyo bari aad u dheer anigu ma ihi dabeel laakiin hal sikinisi waxaan kuu soo dirayaa jacaylkayga oo aan soo goynayaa inta dhul ee noo dhaxayso waanba kuu soo diray ma heshay xabiibi roobka markuu da'o macquul maaha inaad aragto qorraxda balse xusuusno waa halkeedii oo kama maqno anigana waxaan filayaa annagoo kala fog indhaha aysan isqaban karin haddana weli inaan halkeeni nahay marna ma arki karti sida aan kuugu xiisay marna ma ogaan karti sida aan kaaga taxadiro marna ma dareemi karti sidaan kuu jeclahay waxyaabahaas oo dhan si aad u ogaato wadnahayga ayay ku dhex jiraan ma kuu dilaacayaa si aad u ogaato wax walbo haddii aan ku dhaho waan fiicanahay berri waxaa dhici karta inaan ku dhaho ma fiicni haddii aan kulano waxaa ku xigta inaan haddana kala tagno laakiin waxaa mar waliba aan ku dhihi karaa waan kuu xiisay maxaa yeelay si joogto ah aan isbeddel lahayn ayaan kuugu xiisaa markuu qof si xaddaaf ah kuu jecel yahay waxaad ka qaadaa ad adeeg balse markaad adigu si xaddaaf ah qof u jeceshahay waxaad ka qaataa dhiirigelin aan dhammaad lahayn ma ogtahay 3 ere oo aad idhaahdo adigoo indhahayga eegaya in aan ku dareemayo inaan ahay qofka adduunka ugu nasiibka badan waan ku jeclahay 3daas eray noloshayda wax weyn bay ka bedelaan ee ha ka daalin mar walba inaad dhagta iigu dhibciso jacaylka iyo dabeeshu waa isku mid waa laba shay oo jirku dareemo balse maahan shay gacanta lagu qaban karo ama la taaban karo mar waliba aad fariin ii soo dirto waxaan ku xafidaa qalbigayga mar waliba aad i eegto waxaan ku kaydiyaa xasuustayda ere waliba aad i tiraahdo waxaan u gudbiyaa maskaxda adiga iyo ficiladaada waa kuwa ku weyn noloshayda dhagtayda si xan ah uguma aadan odhan waan ku jeclahay waayo erayadaasi waxay si toos ah ugu dhacayn qalbigayga waxayna hore u dumiyeen ama u jajabiyeen dhammaan darbiyadii ku xirnaa qalbiga waxaad furatay wadooyin adigoo dhan walba ka geli karo qalbigayga ma ogtahay macaan halkii mar ee aad shumiso dhabankayga in qalbigayga ka masaxmaan dhammaan wixii xumaan ah la soco qaybtii ku xigtay oo dhammaystiran usbuuca dambe insha allah